marka istighfaarta waxa lagu helaa waxa weeyaan waxa aad haysatid ilaahay inuu ku barakeeyo ilaahay inuu ku barakeeyo waxaan xasuusanahay habeen hore weey ayaan maqribkii nin meel kula tukaday markaas wuxuu yiri waxaan aadahayaa umrada sanad dhaweytana xajku aad markaas waxaan ku iri meeshii yarta ahayd oo aad haysatay oo hal mitir iyo wax la mid ah oo wax ku gadan jiray wax yar oo aan macno lahayn ba u saarnaa bal ka waran wuxuu yiri meeshii baan umrada ka aadayaa وابان دغيستay istighfaarta adoo ka hadlaysid istighfaartii baan badsaday meeshii yartaahid ilaahay waa barakeeyay xajkii baan ka aaday haddana umraan ka aadaya ilma aan dhalay oo dibadda jira jaamacad baan uga bixiyaa maalin kasta istighfaartaan iska badiyaa oo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu iga siiyay rizqi waasi'a oo aad u fara badan iyo faa'iidooyin ziyaada baan ka helay gabar baa marka wuxuu yiri aad u murugaysneed ayaduna oo suuxuma ku dhacday oo sidaas oo kala ahayd baan u sheegay inay ku cilciliso astaghfarta rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim way ku cilcilisay ayadina wuxuu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala wa ubarakay wax badan oo ciriiri kaaga jira maantay istighfarta badi waxaad ku celcelisaa rabbi ighfir li wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim astaghfirullah dambi dhaaf ilaahay weydiiso hadaadan arabi aqoonin Soomaali ku toobadkeen istighfaarta af Soomaali oo la imow da taqaanina ku celceli rabbi ighfir li ku celceli dambi dhaaf ilaahay weydiiso istighfaarta badi ilaahay subhanahu wa ta'ala wax badan oo ciriiri oo ku haysta ayaa ilaahay kaaga